sheekadu waxay noo maraysay gabadh iyo mootada soo kortay weliba iyadoo kabaheeda gacmaha ku wada asagana in badan oo dhibsanaya balse ayadana jacayl iyo kalsooni ay u qabto darteeda ay waxaasoo dhan u samaynaysay ayada markasta way faraxsaneed waxay ku faraxsan tahay wiilkii aadkay u jecleed oo dhinaceeda fadhiya asaga markasta wuxuu ku fikiraya inuu korkeeda ka taabto ayadana waxaas kuma fikiraynin wax kastaba ciyaar ayay la ahaayeen ilaa ugu dambeyn ay ka nixisay haddana ay ogaatay masiinkan in ay ka xanaajisay darabkiisa ayay qabsatay ayadoo u sheegaysa in ay la ciyaaraysay sidai ugu sheekaynaysay kabtii xergeeda ayaa lugta u galay waa ayna hadhahdeegana ka qabatay ugu dambeyn way fiirsatay kabtii asaga ka furantayna ayadoo dhola caddaynaysa weliba aad u faraxsan ayay u xirtay wanaag kastay u samayso asigoo uu dhibsanayay xitaa diyaar amuusan ahayn in lagu arko gabadhan inay isjecel yihiin balse ayada way ku faraxsaneed mar kastana daamakeeda ayuu ka jijiidayay maalintii xigtayna si cad ayuu gacanta ugu soo qabtay asagoo weliba u soo raadsaday guri cidlo waa hore laga guuray gudaha ayuu soo galay asagoo dhan kasta iska fiirinaya derbiga ayuu saaray si waxa uu damacsan yahay maanta uu u sameeyo ugu dambeyn wixii uu samayn rabay intaanu sanana uu raadinayay waa uu helay howshiisana wuu dhammaystay ayada way faraxsan tahay jacayl ayay ka sii qaaday dhaxda ayayna ka qabsatay laakiin asaga necabkiisa ayaa bilowday inuu iska fujiyo ayuu bilaabay aad ayuu u yaabtay ayada maxaa samaysay khad aa gashay maxay tahay wuu istutoosiyey asagana xataa asagoo ma hadin ayuu urid ka sii baxay asagoo soo baxay ayadana way yaaban tahay murug ayaa ka muuqatay ilanna waa ay ka socotay maxaa dhacay si wax u jiraan ayay ku fikiraysay ugu dambeyn waxay rabtay mootidiisa inay soo raacdo intaysan korin ka horna asagooba ka dhaqaajiyey ayadana dhulka ayay ku dhacday muraadkiisiilow meedhar ayuu kaa maraayaan maqli jiray ugu dambeyn markuu muraadkiisii helay ayada mausa rabin naagtan shegsheegaysa xitaa in lula hadlo diyaar mausanba u ahayn laakiin ayada murug iyo tiiraanya ayaa u soo hooyatay maalin kasta waddada inay u istaagta ayay bilowday ayna weyddiiso sababtuu u nacay balse asagu wuu agmarayay ayadoo dhan way isbeddeshay muruga ayaa ku soo biirtay mar kastana ilinta way ka qobanaysaa maalin kastana waddada ayay soo istaagtaa si ay u aragto ugu dambeyn ay u weyddiiso waxyaabaha ku dhacay iyo sababtoo u nacay iyo jecelkiisa waxa nusqaabiyey ugu dambeyn way aragtay asagoo soo socda xaggiisa ay u carartay mootada ayay isku dhigtay si uusan u gudbin waddada waxay weyddiisay sababta ma maxay tahay aniga aad ii nacday ii sheeg waan ku jeclahay soomaa aniga kalsoonideeda waan ku siiyey xitaa nafteyda waan ku wibayay adiga ma ii sheegi kartaa sababta ii lugoonaysa maalin kastana ayaga aamusan tahay adan iila hadlaynin waa ku baryaa haddii qaldan ka galay iga raali noqo asxaan isa kii cafi waan ku baryaa adiga oo keliya ayaa ku jeclaha waad ogtahay aniga iga fog ayaan ku dhahay aniga adiga kuma jecli horta qaabkaaga siduu u yaala fiiray aniga laba maalinta kuma jeclaanin laakiin dibkayga ayaan u baahana waana helay dan kale aan kaa leeyahay deertaar ma jirto aniga waa i khiyaantay adiga weliba si xuna i khiyaantay waa ogahay wejigayga aniga aad inuu u fulxun yahay laakiin ogow aniga darta waa isku dili karaa ugu dambeyn go-aan waxay ku gaartay inay isdisho haddaad qabsantahay sheekooyinka saraxlaafana fadlan follow i soo dheh la soco qaybta xigta mahadsanid